dee wax kaloo jira ma jiraan dad badan oo barakacayaal halkan degan ceelka kana waxaa loogu talagalay inuu dadka faraha badan biyaha gaarsiiyo motorka awal way ku adkayd ama shidaalkiisa in la helo ama ay mararka qaarkood waxyaabo oo farsamooyin ama ciladii ay dhacayeen solarkan haddii lagu rakibo waxaa la rajaynayaa wax sidii hore ka fiican inay noqoto darajo ka fiican biyuhu ka bataan imkaaniyaadka dhan ay fududaadaan maantay waxaan ku faraxsannahay inaan hay-adda DRC iyo contractorkii hawshan lahaa aysan waxba ka maqnayn oo dhigahoodii udbahooda ay wataan waana rajaynaynaa dadka halka degan dhammaan inay ka qayb qaataan wada shaqayntaas guud oo halkaa ka socota hadday tani wanaagsanaatana waxyaabo badan oo kala soo socda oo mashaariic ah oo halkan laga qaban doono waana rajaynayaa inay wanaagsanaato deegaankan wada jir waa deegaan 6 kaam oo magaalada Gaalkacyo ka mid ah lagu soo aruuriyay guryahaas meesha laga dhisayna la keenay ceelkaana maanta hadda halkan u joogno waa ceelkii deegaanka biyaha u ahaa oo in badan waxa weeye ceelkan solarkan la sugayay shaqadeedina hadda waxa weeye ma sha Allah guul meel fiican marayso hadda waa tan maanta iyo kambanigii iyo hay'adii DRC oo mashruuca bixisay dhamaan meesha la wada joogo dhamaanteen waxa inaga saaran dadkan masaakiinta oo mas'uuliyiinta aan u nahay oo meesha tan degan in waxa weeye biyaha waxa weeye solarka ceelka loo saaro si waxa weeye biyo nadiif iyo waxa u helaan biyo joogta mar walba de waa la garan karaa ceel shidaalkiisa iyo bahalkiisa inaan cidina ka bixi karin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta deegaankan aan u helay solarkii meesha tan hawsha ka macnaha solarkii ceelka la saari lahaa runtii marka waxaan leeyahay kambaniga iyo hay'adda DRC dhamaantiin waxa weeye shaqadii waa idin furan tahay waxa weeye shaqadiina qabta dalkiina iyo dadkiina u shaqeeya ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu nagu guuleysiyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno ka wakaaladda horumarinta biyaha ahaan xafladan lagu wareejinayo hay'adda DRC ay ku wareejinayso solar systemka ceelka wada jir oo sida uu sheegay mas'uulka arrimaha gudaha u hadlay in uu baahi weyn daboolay ceelkani uu hayo ilaa 6 kaam oo meeshan la isugu keenay ayaanta hore waxay joogtay ceel markii hay'adda UNICEF iyo wakaaladda horumarinta oo wada jira ay ceelkan intay dhagax dhigeen la qoday lagu guuleystay guul bay ahayd soo hoyatay maantana guushii ayaa la sii qurxinayaa waxa loo soo gudbinayaa horumarin laga sii dhigayaa marka waa wax lagu farxo lagu faano anagu ka mas'uuliyad ahaan wakaaladda horumarinta biyaha waxaanu qaadanaynaa roolka aan maaragtay awalba aanu ka qaadanay mid ka sii weyn oo maaragtay ah socodsiinta hawshaas iyo ceelkaas iyo qalabkaas iyo systemka la wareejiyay rehabilitation kooda iyo in la ilaaliyo oo sidii loogu talagalay loo ilaasho oo aan maaragtay mas'uuliyadaas aan qaadno waana ku faraxsanahay dhammaan inta ka soo qayb gashay mashruucan hay'adda DRC-na uga mahad celinaynaa dadka deegaankana hal dardaaran baan leeyahay waxaan in lagu faraadeeyo oo amnigiisa iyo sii jiritaankiisa maaragtay xalkiisa waara la ilaaliyo nidaamka iyo maamulkiisa iyo la qurxiyo la hagaajiyo ayaan iyagana kula dardaarmaya waxa weeye ceelkan marxalado badan buu soo maray ceelkan meesha markii laga taagay asagoo aan wax qorshe iyo wax nidaam lahayn baa shacabkii loogu talagalay in la dul keenay waa la istaga tagay 8 bilood baan waxaan ku wadnay shidaal anagu aan jeebka ka bixinay oo frontary ku shaqaynaynay wixii ka dambeysana dadkii shacabka ahaa oo reeyo jireed oo ceelka u shaqaynayay iyo anagu waxaan sameynay oo tashi war waxaan wari weynay maxaan yeelaa maamul wax noogama imaan hay'ad wax noogama imaan dadkiina biyaha ka maarmo maxayna wax ku dhaqaajinaa waxa la isla gartay dadkii halka isuun waxa isla garteen dadkii haba yaraatee wax oon shidaalka laga dhigo in laga qaado iyadoo waliba aan tacaadi lahayn oo qof walba tabartiisa aan u qiimeynayno intaas sidaas ku soo socday reewada jirna waxa weeye ceelka amnigiisa ha ahaato waxqabadkiisa ha ahaato dad u wada taagan bay ahaayeen cid gaar ah gacanta ku haysay oo maxaan ku yiraahdaa hadda ila oran kara deerag iyagu ay u dhibteen haata laakiin waa oranaya ayaa meel jiray ma jireen waa reewada jir raga maalgelinayay shacabku waraabinayeen reewada jir bay ahaayeen ragay gacanta ku hayay oo reewada jir ugu hayay gacanta dacaayado badan baa la ka fidiyay
waa lagu habsaday iyo mooryaan baa haysata iyo waxaas waxa weeye waxba kama jirin waad arkaysaan maanta xaadsay tahay solarkii waa naloo keenay waxaanu rajaynaynaa marka annagoo shalayto aan waxba naloo kugu dhiibin ceel qalalan maahane haddaanu u shaqaynaynay reer Wadajir maanta oo naloo soo dhammaystiray tansiilaadkii aan u baahnayn waxaan rajaynaynaa inaan baahi biyood ka imaan doonin waxaan ballan qaadaynaa sida mas'uuliyadda naloo saaray inaan uga soo baxno meeshaan wax dhiba ay ka jiraan ma jiraanin waxaan rabnaa shaqada naloo hayo oo ama dawladdu noo hayso ama hay'aduhu noo hayaan haddaan deegaanka nahay odayaasha deegaanka nahay iyo maamulkaba waxaan ka codsanaynaa inay laba jirjibaaraan mid baahi mid biyood mid haddii imka ilaahay leeyahay waxbarasho mid dhismo mid haddii imka nacfi intaba dadku aad iyo aad buu ugu baahan yahay dadkaan 2 sano ku dhawaad meeshaan degan yahay wax qabada matoorkaas biyaha mooyaane wax kale oo wax qabado ay arkeen iyo guryaha la dajiyo loo dhisay waxaan hayn ma arag baahidoodu aad iyo aad u taala meel walbana waa gaadhay waxaan rabnaa maamulka ka codsanaynaa dadkaasi aad iyo aad u baahan yihiin tabarracad farbada bay u baahan yihiin walba ha gashay waxaan joognaa kaamkooda jir oo ka tirsan degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug hay'adda DRC ayaa waxay ku wareejinaysaa runtii solar ceel ay horay uga qoday deegaankan waxaan jeclaan lahayn in laga faa'iideysto khayraadkaas si wada jir ah looga faa'iideysto maradii deegaana lagu dhisay biyana lagu daray waa nolol weeye nolosha adduunka oo dhan ee booyna nolosha oo jecelna meel ma ay kulli sheen xay noloshu biyo ka bilaabataaba shay kasta oo nool biyo ku nool waxaan rajaynayaa inaanu si fiican oo hufan aad uga faa'iideysataan idinkoo aan ka imaanayn wax dhibaato iyo wax fawda hadii la yiraahdo ka kaalahan booliis ahaan anagu waxaan diyaar u nahay inaanu mar walba dadkii garab taaganna oo u shaqaynayno oo ilaalinayno hadii Ilaahay yiraahdo marnaba ogolaan mayno in qof uu si muxuu ahay toole aan hufnayn uu amniga ma taqaanay u khalkhal galiyo wax kala ku darimayo kaliya anagu de waxaan ka hadalnaa waa hal arrin inkastoo taayadu amar bay fulisaa xafiiskayga amar buu fuliyaa anagoo raacayna shuruucdayada eegaynana ma taqaanaa xuquuqda dadka iyo dalka iyo diinta eegayna kaliya waxaan ka hadlaynaa amniga in la ilaaliyo kala dambeynta la ilaaliyo si dadku ay u wada noolaadaan u wada deganaadaan cid kasta inay ka shaqeyso amniga waxaa jirta waxaan mamnuucnay oo Puntland oo dhan aan ka mamnuucnay dadka shacabka ah oo dharka shacabka xiran oo wato qoryaha oo la mara magaalooyinka dhexdooda oo la mara bulshada dhexdeeda oo la joogo meel kaste oo xabada ay ka dhici karto oo waxa weeye ma taqaanaa qofku ay qof xanaaqi karo oo wax kasta ay imaan karaan ama uga faa'iideysanaya reer Wadajir ahaan aan la hadlayo arrinta waa mamnuucnay qofkii lagu qabto muddo yar kadib qorigaas ku soo laaban maayo laakiin hadda wali digniintii ma wadnaa isbuucan hadda aynu ku guda jirno waxaan wadnaa digniintii ahayd inaan lala imaan magaalada dhexdeeda qori inaan la marin waxaan rabnaa adinkuna inaad sidaas kale u qaadataan qofku qoriga uu leeyahay inta sharcigiisa laga gaarayo inuu ku haysto gurigiisa